inaan deviation laakiin haddaan ku dhaho core waa qashinka spaceka dhulka soo dhacayo. Haa, bal maanta wax ka ogaana meteor showers ama xidiga dhacayaan. Horta marka ugu horeysa ku sir magaca xidiga dhacayaan ma xidigo waa boor iyo dhagaxaan yar kuwaas oo ku daadsan spaceka. Ayagoo qaarkood ay soo galayaan atmosphere dhulka ayagoo xawaare badan ku socdo cadaadis saaraya hawada ku hareeraysan. Laakiin maxay dhulku wax yeelan haddii xawaaraas ku socdaan? Sababtu waxay tahay badankooda xitaa ka weyn xabad caara ah. Markii ay atmosphere dhulka soo galaan waxay la kulmaan iska caabin ayagoo cadaadis badan saaraya walxaha hawada ee atmosphere-ka. Ayagoon aad u dhalaalaya kulaylkaasi cadaadiska daraadiisa halkaas lagu baaba'ayo. Waana midaas waxaan u naqaan shooting star ama xidig dhacaya. Okay, hadda meteor shower-na maxay yihiin? Meteor shower waa shooting stars badan oo laakiin leh sheeko gooni ah. 4.6 bilyan oo sano ka hor markii oo solar system samaysmayay waxaa jira haraadi ka haray processkaas. Laakiin haraadigaas oo loo yaqaan comet solar system kama bixin masan baabi'in. Laakiin waxay bilaabeen inay ku wareegaan qoraxda sida meeraashka asigoo qaadaya waddo dheer inta waddadaas ku jirna wuxuu seerayaa walxa ka harayo maadaama uu barafka samaysan yahay uu isku bedelayo hawo mar walba uu qoraxda u dhawaado taasoo keenaysa inuu waddada ku sii reebo qashinkiisaas. Dhulkan sidaa ognahay wuu wareegaa sidaa daraadeed wuxuu bilooyinkiiba dhex maraa qashinkaas oo ka haray cometskaas qoraxda ku wareegayo. taas oo dhalinaysa in walxo dhalaalaya sidii roobkii hawada uga muuqdaan. Waxaan rajeynayaa inaan wax uga fahmay haddii aad jeceshahay inaan nala saameys fogaan oo kale. Taal nagu soo biir.